السلام عليكم ومنت الصوماليات وحان ربعنا مانتا كهدلو وحيالا دباتا او ادي اد عن لكلنay waxaas oo kamid ah saaxiibayaal waxa waaye anagu waxaan muwaad Soomaaliyeed waxaan la imaadeen gabadha u qabo farmaajo maadeed waxaan la yiraahdaa reer macallin waxaan iyo farmaajo shalay annaga saaxiib tolkeena barnay oo dadka barnay oo gacan qabanay oo garabkiisa istaagno u duceynay maanta dhibaatada weyn oo naga haysto waxay tahay kuwa faristi qabiilka oo ka dhashay meel kasta waxay la taagan yihiin ma taqaana ayagu waliba hoteelada ay degan yihiin beledka wax ku haysta wadanka ayagu meel kasta waxay la taagan yihiin ma taqaana gabadha iyo qaraabadeeda ama aragtay ninkii afduubtay war waxa ku haysta malaana uu saaxiib wadada koowaad talabaad ay haysto walaashiis afraad ka saac asiga ma hayso u faatay anagu bayna haysaa iyo gabadha waa talabaad tan saddexaad waxay tahay saaxiib beledkii oo mar laana qof kasta oo yaqaan hadaan reer macallin qof kasta oo Soomaaliya oo yaqaan wuxuu leeyahay saaxiib kaale inoo dhiib adaa lagu soo dhiibay wax ma haysto oo waraxas ka yeelay marka niyo dhibaato faro weyn ayuu nagu haysaa farmaajo bilis waxa ka cusub saaxiib waxay tiraahdaa dadka halala dirno musmaasuqa iyo waxyaalahaas ay tiraahdaa saaxiib adiga first number 1 musmaasuqa keenay فانتي إيه كذا سؤال وسطا إيه كذا ناقص سنة كبيرة أما واحد فائدة قوة يسمى مجرى سومالي محمد هذا الشيء غير معلنا دليل هذا قبل المالين الحمية الله هل قف قرب على الدولب وشخص المجرى والله أنا بين الشيء هل قف الدولب وشخص قرب علينا نو مجرى فانتي فرماجو وحل يندق ولد الريا ضدبو ولد الريا مسماش ولد الريا هل معلم ولد الريا وانا dadkii saaxiib dadka ka dhigay marka bariis waxaan ka baryaynaa farmaajo saaxiib ayuu intaas jirto da'deeda jirto faantay noo fur saaxiib amaan san amaan u helna dhulka wadanka waa mari laana dad muwaadiniin wadanka ku dhashaana yuhuud baa naga dhigtay saaxiib wadanka aan u dhalan marka saaxiib bariis umada Soomaaliya waxa ku dhashay wax kasta la ogaatay aan ka foojirnaatiin waxyaalaha ninkaas oo baanta wada ku sheegay salaamun calaykum halkaas